saacadan xilliga dambe ah ay arkaysaan caawa waa sidii saxabiinimo dhalinyaro Soomaaliyeed shaqeynaysa farxii kabitaala kamida dadka runtii shaqeynaya ee laamigii ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya ay isxil saareen in iyagu qurxiyaan marka waxay ka shaqeynayaan bilicda iyo qurxinta laamiga waad aragtaan waxay saacadan habeenkaan xilligan marinaya rinji iyagoo runtii kooxa oo muujinaya jacaylka wadaninimo iyo maxabada runtii qalbigooda ku jirta dad badan oo Soomaaliyeed saacadan runtii qaarkood way jiifaan isleeyahay laakiin iyagu waxay u soo jeedeen oo ay runtii xil iska saareen inay bilicda iyo magaalada qurxintooda sameeyaan farxiyo waa dareenka ka warcaa laamigii runtii waxaad sameynaysaa rinji waxaad runtii aad muujiseen jacayl wadaninimo mar soo dhawaayay dareenkaaga والله dadka soo salaamay saacadan ayada ah waxa igu kalifay waa fikir hore igu jiray in aan bilicda dalka soo celiyo waayo waxaan ahay muwaadin dalka u dhashay meel inaan ka aado ma rabo waxaan rabaa meesha aan maraayo ama meesha qof facay maraayo ama meesha dadka iga waaweyn ay marayaan inay qurxoonaato fikirkana waxaan ku taamayay muddo habeen bay ii dhibaysaa caawa ilaahay ila kulmi alxamdulillaah rabbil caalamiin inta dhiman Allah noo dhameystiro ilaa iyo hadda waxaan tagnay hotel weheliye hotel weheliye ka soo harnay dhinacana hadda u soconaa insha Allah caawa inoo bilaamatay ilaa iyo bari daba waa wadaynaa habeen daba ku xijinaynaa ilaa iyo lambar 4 ilaa iyo banaadir waqtiga meesha noo gaartaa insha Allah ku ekaysiinayna dadka soo Soomaalida ku daawanaysa maxaa leedahay markii maadaama adigu is xisaarteen Soomaalida daawanaysa waxaan leeyahay horta aan ka talino nabadda iyo aayaha dalka iyo xasiloonida iyo meesha anaga aan ku noolaan lahayn aan ka talino quruxdeeda iyo nabadeeda aan ka qayb qaadano nabadda aan ka qayb qaadano quruxdeeda aan ka qayb qaadano wadannimada waayo waxaan fiirsadaa adduunka sida la isku jecel yahay adduunka sida la isku daawado dalkeena Soomaaliya wuxuu ku kala haray hebel iyo hebel anoonan hadda qolo kale haysanin waxaan nahay dadka dalka u dhashay anuu qabiil waxaan ka jeclahay qarannimada weligeena waan ka jeclaan doonaa insha Allah bidna kale aad bay farxiyo ma santahay dareenkoodii muujiyeen waxa ka go'an inay laamiga saartaan qurxiyaan wadadaanay runtii soo hagaajiyeen hadda gabadhaana kamid ah gabdhaha runtii nafteeda wax hagaajinaysa waxa diyaar u tahay xilligan la joogo waqtigan in iyaduna laamiga qurxiisa ka shaqeyso soo dhaw magacaaga adiga maadsan magacaygu waa Xamdi waa ku faraxsanahay saacada iyadoo muslimka leel u taagan anaga inaan qarannimo laamigan u rinjiyeeno waa ku faraxsanahay ومركي كوريس مية لامي قال رجيس ما مشهورة وسوي شغلة. مركي كوريس. مركي كوريس هذا ما سنت ذاتك غير مقدسة كوا صاحبة قاعدين كوا تنفتي كده يسولوا وين درين كينا كورا درين كينا. أديان. وكفر عسنتين. والنبات. أدي وما سنتين هذا ما سنتين سولوا درين كورا دين نفتي كذا. بل عاو واحد كشغلين يسوون تدي. ما سنت هاي. أيه. أنا حلقة سقط dilna ugu timaado aad ku mahadcelinayna runtii aad iyo caaw magaalada Muqdisho way ka duwan tahay jawiga hore aad iyo dadku meeshay dhar ciid iyo ka soo gadanayaan aad iyo waxaan door bidnay inaan sii qurxino meelihii ay mari lahaayeen aad iyo bilicdiisii iyo mataqaanaa inaan soo celino aad iyo farxaday noo tahay taas ciid noo ah aad iyo caaw siidka ka soo bilownay hadda sidoo kale waxaan maraynaa shaqaalihiin u sii dhownahay caaw kaliya hadda isqabanay ورجينا إلى يوم تقانا إلى سيجارسين إلى سيوتان لما رافر يصاب هذا ما سنت أنا حلقة نوت ما هذا قسم ما سنت كيف علينا صاحبة الدورة وحلية مقال كهدي أذكار كان مجدي وقتك يمشى أورنتي مجدي أيان كقول داريا والله وياك قول داريا دمانتين صار كان لا ميجي وده قحنتي سي تذكر ربان مال قرحان إنه يكون عيدان هل كان هو مال أساس وقفوجين إزجوز كدب كم بدشوا dadkii yaqaana oo runtii aad u garanaya saxaabada aqoonna waxa la yahay waa meel u dhow goobtii xal qarax uu ka dhaxay ee saldhigga degmada waa bari ee saaxiibo badan oo la yaqaana ay ku dhinteen wiil yar oo runtii rag kamid ah la jooga dareenkaaga macallin wiilkaas aad u mahadsan tahay waa habeen bardhaxa oo 9 saac ay ku sii dhowdahay 45 daqiiqo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo qayb galno dhalinyarada oo bilicda celinta ee magaalada Muqdisho waxaan wadana waa furnaadihii oo aan ku tilmaamayno inay magaalada Muqdisho waa nabad aad iyo Muqdisho waa nabad waa aragtaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo bushay oo bilicda ka shaqeynaysa halkii ay dadka masaakiinta ahna ugu tabarucay dhalinyarada dadka aqoonta masaakiinta oo qayb kamid ah ciidsinay laamidina qodxinay aad baan ugu faraxsanahay inaan wadanka u shaqeyno naga dhalinyaro هذا ما سوف كم العنيا صاحبي يلا ما سنتين
waxaan codsanayaa qof waliba oo muuqaalku gaaro inuu noogu cudur daaro mugdiga iyo muuqaaladan duubayno aan qurux badnayn markii laga hadlo dhanka iftiinka laakiin laamigaas oo loo qurxiyaa wax kasta noogu muhiimsanaa wadadan dheer ee aad u jeedaan ay ka shaqeynayaan dhalinyaradu aad u mahadsan yihiin Farxiyo Capital iyo saaxiibada iyagu waqtiga bixiyay ee wadanimada muujinaya ee jacaylka wadanimada muujinayay wali waa aragtan way shaqeynayaan iyaga laamiga qurxinaya waxay leeyihiin dadku ku ciidan meel qurxan laamiga qurxoonna ha lagu ciido ay leeyihiin oo ay ka go'an tahay waan u mahadcelinaynaa naftigeena waxa la maasintiin waxaan u awoodnaa inaan dhiirigelino waan ku dhiirigelinaynaa laamigu qabiil ma lahan cid kale ma lahan uu naga dhaxayaa marka muxaafad iyo mucaarad baan waxaan leeyahay halka anaga wada leh qurxinteeda waa inaga xil saaran tahay ka wada shaqeeyno adigu aad u maasan saaxiibayaal maasintiin waxaan dalbanayaa ugu dambeyn qof waliba oo muuqaalku soo gaaro inuu share gareeyo isagoo maasan oo sii faafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh dalkoon nabada dalka barwaaqo insha Allah